igu daaline dantaada raac igu daaline dantaada raac السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا سيد بلانكو هايو ده. كورم كأوتوماتيك واسكب بحسبة سيد مو باهنا نو. عدكي ضدكي مرة كقار ودبكو يا إني مغلان هذا عوضهم عن فلايا إن أي سه جاكسن ومغلي دونان هدو إيه بالسامة. warkama saasoo yiri mise wadaadka tuug ah warkama saasa mise wadaadka tuug ah awada labo ilaa 5 qofood aan fursad siin doonaa marka barnaamijkeena ka hadalno colaadda baahsan ee xamar ka jirta ilaahay ummadda Soomaaliyeed ee tacbaanka ay casharada fiican ka haysa dagaaladii sokeeye ilaahay ka najeeyay aygu daaline dantaada raac aygu daaline dantaada raac aygu daaline dantaada saluut salaanta dajiye salaanta insaaran salaanta dajiye salaanta dajiye salaanta dajiye horta waa idin salaamay dhamaantiin waana dhantihiin koramku 1 minute ku buuxsamay inta wixii ka dambeeyay wayna micna ka sheekaysanaa marka inta wixii ka dambeeyo wayna micna ka sheekaysanaa wayna micna ku hadalno sidaad ogtihiin xiisado ayaa isdaba yaacaya magaalada Muqdisho oo maalin ka dambeeyay xaaladda faray ka baxaysa waxaan aad ugu mahad celinayaa horta marka hore saaxiibada qaaliga ah ee barnaamijkan awoodiisa gaarsiiya kumanaan ilaa 100,000 saaxiibada halgankan ila wada ee barnaamijyadan ka qayb qaata fikradahooda qoraal uga dhiibta share gareeya ama aragtina la wadaaga kuwaas ayaa ah awoodda koowaad marka lagu leeyahay bulshada number 1 ah qof number 1 ma noqon karo anigu waa iska hadli karaan mooyee haddaadan haysan garbo ku qaada oo ku jiida oo kugu aragti ah oo aad isla socotaan you are nothing without them nothing mii qof kaligiis aw aaminsan inuu socon karo dadka la'aantood wax badan qasmaayo anyway wararkii ugu dambeeyay habeen walba newskan wuxuu noqon doonaa update saacadahan ama hadahan oo kale waxaana kaga falanqoon doonaa magaalada Muqdisho oo aan ku dhalanay oo aan ka dhalanay oo aan ka nimid oo aan ku soo kornay oo wax ku soo baranay ayaa lagu tacadinaa anaga cid ka dhageysan mayno dadka deegaanka hadaan nahay magaalada Muqdisho ayaa saasa iyo saan lagu sameeynaa qof laga dhageysanay ma jirto wararka ugu dambeeyay hadda waxay leeyihiin oo idinku bishaareynaya oo idin sheegaya horta ciidanka oo Muuse garbihiisa soo buuxiyo oo aad daawateen caawa horta waa ciidan mudulood oo garab ka haysto walaalaha Hiraab iyo Hawiye oo aan aaminsanayn horta ciidanka kaaraan magacaas leh xooggaas leh ayaa rabaa horta inaan idin sharaxo waxay yihiin waa beel laakiin ma aha ciidan u diyaarsan inay dawlad dumiyaan ma aha ciidan u diyaarsan inay qabqablad Soomaaliyeed saacadan kadib 30 sano kadib dagaal la galo ma aha ciidan u diyaarsan in nidaamkii dimuqraadiyadda meesha ka baxda ma aha waa ciidan aaminsan qofka waxba shabaabku soo wax ma aaminsano shabaabku nabad way ka jecel yihiin cadaalad way ka jecel yihiin laakiin aragtidooda ayaan ku diidanahay iyagana nagu diidan yihiin aragti ciidankan kaaraan iyo Cabdicasiis isku xiray waa ciidan aaminsan in xaajigoodi la soo dulmiyay xaaji Muuse Soodi oo anin haliyay sida idin sheegay
oo aad loo qadariyo dowladii Cabdullaahi Yuusuf tii Sheekh Shariif tii Xasan Sheekh tan hadda joogto nin salaanta loo saaro waa Muuse Suudi ma nin la dhaw gurigaada bari kugu soo socdaa iyo in saqajaanimadaas loola taga Muuse Suudi ma hadda se waa ogaadeen dowladda Farmaajo way ogaatay marka waxaan rabaa inaan horta dadka aflagaadeynaya ciidankee la saacadan aysan macquul ahayn in ciidan calanka Soomaaliya inay wataan waa aragteen calanka Soomaaliya inay wataan waa aragteen Soomaa wali Soomaalinimada ka go'an dowladnimada ka go'an dayac dowladeed ma rabaan dadkood saacadan isbitaal loola ordiyo hooyo umul weysay qabiil iyo qurun iyo saacadan dowladda inuu soo gurmato wallahi billahi tallahi ciidan u diyaarsan ma aha waa inaad fahamtaa ciidanka Soomaaliya qaybtooda kaara inay ka mid yihiin ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed laakiin aaminsan afkaarta Xaaji Muuse Suudi yalaxu ciidan u diyaarsan maaha inay qabiil la diriraan inay qabyaalad kiciyaan inay dad laayaan inay Maleeshiya qabiil noqdaan inay noqdaan kuwa isbaaran dhigto kuwa sagaashameed dib kugu celin lahaa ciidankaas maaha waa ciidankii difaaca deegaanka waqooyiga Muqdisho waaye haddii aan si kale u yiraahdo waa ciidanka difaaca Muqdisho waaye okay latest 24 saac wixii hore intay la socoto way la socdaan hadda sa qaybta labaad waxaan rabaa inaan idin bidhaamiyo waan ogaa halka inay tahay goobta kaliya ee idaacadda Xaaji Muuse Suudi waa idaacadda horta iska baratina fiican idaacadan hadda iska baro marka laga soo tago idaacad Soomaaliyeed wixii Garowe ka dhaco wixii Kismaayo ka dhaco wixii Baydhabo ka dhaco way sheegtaa laakiin idaacadda stationkeeda sinka dheer Kaaraan ku yaalaaba marka sidaas darteed ayaad uga dheehan kartaa wararka ugu dambeeyay Kaaraan iyo Cabdicasiis ka dhaco update ka hadda IDC marka waqti badanna ma hayo horto ciidankii tirada badnaa oo daawateen alxamdulillah dad daawateen warkeyga hore aan kugu sheeganay uu dhaboobay oo dadkii dawladdan tirada yaraa ee taageerta war boos ciidan uma soo socdee war boos warkuu sheega waa been anigu nin weyn ahay oo 30 jira ma u maleynaayo dad hortooda xalna waa idin sheegay abeer waa idin kugu celiyay haddaan war leef u soo galo ama qoraal ku soo qoro bogeyga ku soo qoro waa war dhab ah oo xaqiiqa oo ka fiirsado oo mas'uuliyadiisa aan qaadayo waaye waana aragteen haddana mid kale idin sheega ciidankii awada markay bandhiga galabta sameysteen oo la shaaheeyay oo la sheekaystay saldhiga degmada Kaaraan si toos ah u tageen afar gawaari oo tuuteysan oo ciidanka qaranka Soomaaliya booliska anima dhahay ciidan kale waa laakiin waa isla ciidanka qaranka deegaanka ah ayaa waxa lagu yiri oday Muuse ciidankiisa waxay ku dhaheen meeshaan isaga baxa 24 saacadood kuwi 24 saac loo qabtay can you believe 40 daqiiqo hataa ma joog waa bixino waxaana lagu yiri idinkoo maadsan qeyr dhinaciisa afka ma aadi kartiin abgaalka war ma qariyaan abgaalka dad war qariya ma waxay leen eeboyaal ma aan iska baday kartiin ee xarun ciidanaan ka dhigan rabnaa ciidamada balcadka yimida meel ay jiftaan le saldhig boolis hadda ma aha boolis abgaalka hadii ku nacaasaas waay boolis waxa la yiraahdaa meeshan kama jiraane ma noo banay kartiin ari meeshan qeyr dhinaciisa ama Farmaajo dhinaciisa afka ma aadi kartiin ali markaasay diyaar wallahi boorsadu waa xirteen kuwa tahriib Liibi lagu hayo lacagta laga daayay maartay oo lacagta Liibiya inta lagu qabsaday ma gafi oo lacagta laga shubo orod isdayn markaas ogownahay anaga asxaabtii hore aan dagaalka waa sii sheegnaa mina inta sii joogtay waa ku soo duuleena asxaabtii hore camal aan dheen dagaalka uma qarin anaga wax cid ma gaadno asxaabta markay dagaal galay wax ma gaadi jirin waa la sii sheegi jiray dagaalka maalin hebel isniina inta soo soconnaa dagaalka markuu xalaal yahay isniina ku soo socdaa talaada ku soo socdaa bariya ku soo socdaa waay qof meeshan Saadiq John iyo Maleeshiyada qeyr soo dirsada camal ma Cabdiraxmaan Cabdishakuur soo dhuumanayo musqulaha Cabdiqiidid galay dadka urur dama aha dawladda hadda example dib u laabtay Cabdiraxmaan Cabdishakuur weerarka ku qaadis hadii 24 saacadood tuhunka ay ka qabaan isku soo caday ama kugu soo duulina raganimo laakiin dawladda ma dhuumeys xitaa abgaalka kulay waxay dhinacwada ciidanka saldhiga joogay meeshan ka baxala wax boolis loo meeshan ka mataliyo ko shuruuc ay sameysteen waa jiraan oo la soo rogay aniga afayeenkii idaacadina waa halkan waxaad kaga bogataa wararka ugu dambeeyay idaacad idin sheegto male VOA ma sheegto BBC ma sheegto warka idin sheega waxa idin caday media dhaqdhaqaaqa fiidiyoda soo geliyo kuwaas marka aad ka dhabayso alla ilaahay warka xal oo booska sheegay run bay ahayd Muuse taliyaashiisa ciidanka dib u soo ceshtay Muuse wallahi ma aamina intuu hal telefoon qabsaday imaaw ciidan hebel ma taa imaaw ma dhihin iyaga sorry waxa iga dhiga telefoonka Muuse miga aaminaysin hal kalena bulshada u cadeeyo oo muhiimana waa rabay Muuse intuu ciidan wacay ma dhihin hal difaaco hadaad hiraab tihiin hadaad hawiye tihiin
haddaad mudulood tihiin haddaad abgaal tihiin haddaad wacbuudhan tihiin haddaad daa-uud tihiin haddaad yuusuf isaaq daa-uud tihiin ma dhihin wallahi muuse ixtiraam loo haayo ayaa afarta koona wixii ciidan ahaa haba ugu badnaatay muduloodkii cawada u hoos joogaan oo habar gidir telefoonka uga baxeen ina adeerow kama maqlin garbahaada baan joognaa dhinacaada baa naga eegaysaa haddii qush dhacda xabadda dhinacaada baa naga eegaysaa ay ku hayaan habar gidirna waa runtood habar gidir ballanka baxay way sameeyaan laakiin mid dagaal ma aha habar gidir dagaal hadda ku ballantaan lama waayo habar gidir lacag waa ka weyn kartaa ballanta waa kaaga baxayaan dhul cusub waa kadarabnaa waa kaaga baxayaan waa wada qadiirnaa daalada waa kaaga baxayaan laakiin habar gidir u malayn maayo inuu dagaalka maaragtay ee kaaga baxayaan waxaa kaloo wararka ugu dambeeyay ka mid ah horta saldhiggii waa la faaruujiyey saldhigga degmada kaaraan caawada ciidan balays soomaaliyeed ma joogaan oda muuse wuxuu yidhi mini boolis loo baahaya kuweygaa dhar boolis u gelina saldhigga ayagaa tagaayo berina ciidankii muuse suudi oo dharkooda bedashay oo isagaaba ayatullah cali qumeni waayo muuse suudi isagaaba hadda dowlad caadi noqday cabdicasiis iyo kaaraan cawada muuse suudi hoos imaadaan haddaa ratid waxaad dirsataa wafdi delegation qof ruufiyaan ah qof wax soo indheeyo warkayga aamin soo ogow boolis asaa ah military asaa ah asaa cawada bandhig samaystay dhowlatus military oo samaystay waa ayatullah cali qumeni cawada muuse suudi magacaasa gudulood u bixiyeen ayatullah ninkii iiraan ka talinaya kow saldhigii waa la joojiyey wuxuuna ku amray taliyaasha ciidanka markay baxayeen baabuur boolisa oo sanca soo dhaafaya haddaa arkuu dhahay xabadda waa bilaabanaya xabadda waa farmaajo wuxuu isku dayay in wadaxaajood uu la furo muuse suudi xalay wuu soo wacay saakay markii la quraacday wuu soo wacay maanta qadada wuu soo wacay 3 jeer oo soo wacay yariisoona fariina loogu soo dhiibay markii saddexda marna muuse iyo farmaajo isma fahminaa galabta yariiso wuxuu soo wacay muuse uu leeyahay arrintan ma galaa can you believe afraxaweyn uu jawaabay muuse isagoo markaa isleeyahay ninka waa raxaweyn beedhaw ka imaaday macnaha maadaama yariiso lagu xaglinayo dhanka farmaajo because yariiso nin responsibility qaadi kara maaha nin deegaankiisa matala maaha anigu igu cidiyaa yariiso waa nin abgaalo daauud ah muuse waa nin daauud maxaa ku kala jeclaa yariiso abgaalka dhinaciisa wuxuu ka yahay handicap ma taqaana handicap weliba qaar waxay dhaan ma bilihii hooyadiisu soo dhammaysan isagoo 7 bilood ma soo baxay isagoo 6 bilood ma soo baxay nin aan dhammaystirnayn waaye waa nin haddii loo walaalkaa dilaa iyo xil yaa rabtaa hooyadiis iyo abiis ninkay dhaleen waa la dilaa iyo xil yaa rabtaa dilaa yariiso xilo doonaa waana sababta shacabka Soomaali abgaal kaliya maahane habar gidir iyo abgaal iyo mudulood dho Soomaali dhan fiiri hal example aan siinaa markii gobolka banaadir qarax ka dhaco markii gobolka banaadir dad lagu dilo markii bajaaj wax lagu sameeyo wiilal wato dadku maxay u aadaan wasiirka amniga ma aha wasiirka amniga mas'uuliyadda koowaad gudoomiyaha gobolka banaadir ma malxiis baa muxuu yahay wax kasta oo gobolka ka dhaco gudoomiyaha gobolka banaadir lagu xisaabtamaa wasiirka amniga waxa lagu xisaabtamaa amniga Soomaaliya dhan ayuu muhiimad gaar u leedahay laakiin ninka la yiriiso gobolka banaadir ninba ilaahay ku dhaarshay 200 qof aatiine wax yariiso u caayno oo dadka dhan wada caayaan ma taqaanaa wax kala ma aha yariiso wuxuu la mid yahay nin xaaskiisa ay dhalayso oo gurmad lagu hadii dhalmada ay ka qaloocato ama qaladaad caafimaad imaado nin kale oo dariska lagu eedayo waay sharaxaad kale uma hayo yariiso waa nin xaaskiisa ay dhalayso hadii caafimaad dara ay imaado dariska lagu eedayo leeyahay hebel muxuu xaaska hebel wax uga qaban waay waa nin noocaas waligeed ma aragteen qaraxa dhacay yariiso hays casilo waa la ogyahay inuu tala ku lahayn awood lahayn ixtiraam lahayn mas'uuliyad lahayn waa ninka muuse suudi miya oo soo waxa wuxuu leeyahay adigii farmaajo inay wada hadal siyaar raba adigii farmaajo inay gartiina ariyaa waa afraxaweena lagu jawaabo galab samaacada afraxaweena lagu jawaabo may fadaasay bacad odag muuse luqad uu garanayn male anyway waxa jiro sidoo kale oo dadka been laga ma sheego oo run baa laga sheegaa oo aniga wixii soo ziyaada 1 minute waa idinku daraa niman xawaadla ah iyo rag murusada ah oo dhaqanka deegaankaasna mas'uuliyad weyn iyo ixtiraam weyn looga haayo ayaa cawada muuse soo booqday nimankii xawaadlo waxay waa ognahay in lagu soo gardarooday waan ognahay in lagu soo xadgudbay waan ognahay in filada ku tashanayso anaga garabkaadana I don't know inta garabkooda la ekaan kara xawaadle I don't know inta murusada sidoo kale waa yimid anagu waxay dheen qeyre kursiga wuxuu ugu fadhiyaa adiga iyo aniga mas'uuliyadda hawiyu qeyre wata hadii qeyre responsibility-ga wax dhibaatadan imaado uu qaadi waayo murusada ma qaadayo
muuse oo garabkaadaan nahay murussade in dhaliisha aad ka yareysaan ayaan hadda waxa usoo gala leefka number 1 in murussade iyo qeyre ee laba qof kalihiin ogaataan duluud ama hiraabow murussade maadaama cawada ay odagii la casheeyeen ee kaaraan imaadeen odayaal dhaqamoodkoodii culimadoodii iyagoo 3 baabuur oo qooqana wato hal cabdi bilawato ilaalinayo murussade inay muuse oo ixtiraam weyn aan ku haynaa ficil kasto meeshan ka dhacana beriyaan ka nahay qeyrana nama matalo qeyra hortiis murussade waa jiray gadaashiis waa jiri doonaa haddana waa jirnaa mowqifkan daayniile ilaa ceelbuur ilaa jacri iyo bargaan ilaa galhareeriya iswataa muuse ama nin hiraaba ama nin hawiyo lagu duulayni ra-iisul wasaarahan nahay uga baaqan mayno fariinta koowaad taas waaye murussade waa soo diray 2 xawaadla waa yimaadeen duhurkii maanta ah iyaga kulli casrileed iskuma soo gaarin xawaadlana waa u muujiyeen taageerada ninkaas habargidib waa u muujiyeen sheeqaali dudublow hore ugu muujiyeen abgal waaba kuwa inaan dhimanno aan diyaar u nahay taagan waay muusena wuxuu taagan yahay 70 sano jira waaba daaho dhaaniga adduun waaba ku daahay haddase wallaahi billaahi tallaahi wuxuu taagan yahay muuse suuda dardaarankiisa ugu dambeeyey aniga waxaan noqon doonaa geerideeda waxay noqon doontaa mid difaacda dadka iga dambeeya ee deegaankayga hadiiba geerideeda intifaac uu ka dambeeyo I'm ready to die hadiiba geerideeda intifaac iyo xorriyad lagu helaayo waa u dhimanaa u dhaay awalba hal waa ku taagnaa u dhaay muuse askarti uu qudbadeynayana maanta muxuu ku yiri mataqaanaa ma noqon doonida hogaamiye oo gadaal ka fariista oo telefoon kala socdo ciidanka intay marayaan luqaba la jiray wax buudhan may marayaan ma jiiraday ka baxeen ma naqon wuxuu ciidanka hortooda 3 magac ilaahay ugu dhaartay in uu noqon doono qofka ugu horeeya ee xabadda qaata ee la dagaalama muuse ma aha nin ciyaal suuq ah nin tuug ah nin inuu dhinta qadaro ku raba ma aha kulay guri xaaraan hadoo yahay kulay muuse waa dhimanaa asoo 70 jir ma dhileen dawlad baa u sharciyeysay inta dugaaga ah aan ogeyn dadku waa ogeen dugaaga ma oga dawlad baa u sharciyeysay Abdullahi Yusuf oo intaas oo hubo uu kaga bedeshay ayaa dhulka u sharciyay hanti baa ninka laga qabaa oo hubiisa hubka mee Abdullahi uu farta ka saaray ninkan farmaajo iyo Abdullahina kala ma jecleen Abdullahi waa ninka intuu hub u dhiib u dagaalamo muuse waay oo wasiirna uu ahaa farmaajo ninkan daarood nacab ma yaqaan hadduu daarood nacab yaqaan abgaal feeri waxaan rabaa dadka aaminsan mareexaan nacab yahay ama daaro horta Soomaaliya maanta way ka tagtay xil la dhaho daarood iyo hawiya isnacab wixii isku dana ayaa isku dan ah waxa isku dan ahna isnacab wayna fahamtaan daarood iyo hawi filimkaas waa laga tagay anigu maanta saaxiibaday ugu badan waa daarood oo hawi aan ka jeclaa qaar danteen isagana uma muuqato anna war qabiilku waa laga tagay dadkan ku orkacsada gooni ah haddaad isdifaacis qabiil ma tiid muuse ama abgaal waa nimanka Abdullahi Yusuf xamar ku haayay oo u dagaalamay oo u jiisoobay oo dadkii wada diidan oo madaafiic habeenku ku guraayo Abdullahi abgaal soo difaac abgaalku madaaradeen cibiin habargidib lagu tusi karin hawaada lagu tusi karin murussadaha aad u jeedid oo nabad in nolol ku haayo boqol madfaci daan la soo riday Abdullahi Yusuf waqtigiisa ma xasuusata idinka boqol madfaci soo riday Abdullahi Yusuf ma harsan jirin ma hooyan jirin امر ددق ايغا كوريده ابغال waa dadku u dagaalamay Abdullahi Yusuf haye illa Ali Maxamed Geedi Nuur Cadde isku baxaan iyaga istagaalan mahane shacabka abgaal Abdullahi Yusuf iyo nimankii ma jarteen ciidamada ugu badnaa marka koofi gaduudi sharaf iyo qiime kaga tageen abgaal dhaxdiisa maanta marka miga dhacin kartaa mareexaanka abgaal ibsanayaan maxay Abdullahi Yusuf ku haysteen marka Abdullahi Yusuf aanu ahaamiya kana waa barax abgaalka ma yaqaanaan daarood naceeb iyo habargidir naceeb iyo qabiil naceeb iyaga imtixaan isugu filan oo iska kala harsan laakiin markay qadiyad imaado Mareykan ha ahaado iyo Ruush iyo China wala iska celinaa ama qabiil u fasira ama qaran dumis u fasira adeeg ku taala muuse gurigiisa dawlad baa u sharciyeysay hadaa tira dawladda Abdullahi Yusufna ma jirto oo tii Sheekh Shariif oo imaado oo ka fiirso ka jeegareysana ma jirto tii Xasan Sheekhna ma jirto awada mid farmaajo haysata waa okay waxaan rabaa marka dhinaca filada dhinaca muuse soodi waa inii sheegay ciidankiisa diyaar weyn waxaan rabaa in aan ka ilaabay oo aan jeclaan lahaa arinta ugu muhiimsan number 1 dhaqdhaqaaqa military awada ee filada wuu sareeyaa si fiican ina ii fahamtiin isku dayaan dadka ay daawanayo idinka muuse soodi maanta power u ah idinka ciidankii in isku xirmaan kii balcad jooga kii masagawa jooga kii kaaraan jooga in isku xirmaan oo maanta quwadaas iyo bandhigaas la muujiyo filada ay naxaan waa wax anaga iyo adinka ka shaqeyseen
haddaan aniga hadli lahayn oo idinkana aadan muuqaalkaas qaybin lahayn oo sheergarayn lahayn ciidana ma gaari lahayn ciidana ma aqaan aniga nin kasta hooyadiis hadduu gaarsiiyey eedadiis iyo awowgiis awoodda lagu sheegaya waa shacab kacay waaye waa dhalinyaro kacday hal qof ma aha boqor walba qofka keligiis yaa waxa uma taro isnaatin kow waxaa idiin sheegaa awada kowda habeenimo labada habeenimo ayay qorsheynayaan sida sirdoonkayga uu ka war helay in muuse la weeraro oo maanta qashqashaad yar ay kula dhaqaaqeen axmed daaci oo ay u fahmeen haddii muuse la weeraro in number 1 ninka soo gurmanaya uu kaas yahay qaal qashqashaaday inkastoo wax weyn aysan ahayn laakiin tusaale yar ahayd haddii qashqashaad jirta kaarana la aadi lahaa haddii dulmi jirin kaarana la aadi lahaa okay muuse horta intaan talada idin siin kow muusena wuxuu sida idinkaga dhawaajiyay ilaahay isku hadal waa naga dhigay amnigan iyo dhagaxaanta la goynayo waa wax lagu socdo maxay idin habeen maxay idin dhaani amni ma jiro waxa number 4 $1 ku maray jidku waa furan yahay jidka dadka muulaha iyo masaakiintu ka xiran yahay muuse suudin waa fahmay qishka wuxuu dhaa wax horta koo waxa idin kugu bishaareynaa warka waa ilaawaya waxa idin kugu bishaareynaa warka waa tira badan yihiin waxa idin kugu bishaareynaa ciidan amni la dhaho oo amni sugayo wax baaraay kaaraan ma tagi kari hadda idin kugu bishaareynaa waana go'aan xaajigu soo jeediyay haddii kaaraan amnigeeda la sugayo guri loo baaraa waa hore la baari la wareegtada gurigiis ka hor la baari la haddana ma dhaceyso ama danab keenso ama iiraan keenso never ma dhaceystaas kow labo dadka hadda ay daawanaya ayaan rabaa hal fariin inaad la wadaagtaan saaxiibadii kale oo maxay tahay fariintaas awada nimanku waxay qorsheynayaan inay muuse weeraraan oo muuse maxaa loo weeraraa gurigaada ayaan qadar ka iibsanaa waay horta mala socotiisa meesha guri loo wado qadar ayaa guri abgaal ayaa qadar ka iibsanaa in abgaal xamar ka kicina ayaa qadar guri dejinaa taas qof qaadanaysa ilaahay uunta mala abgaal ani dooxa mal nin qadar ka kacmal la abgaal keena mariyala ma yeelayo horta guriga waxa loo wada abgaal una faanti isku daya qadar company qadar iyo dawladda qadar inay soo degto xeebteena waana xeeb dad ajaanibi xeebta lama dejiyo sidoo gudaha la geliya xeeb cadowgaada xeebta lama dejiyo wadaniga inay xeebta ku raaxaysta la rabaa waa meesha maraakiib shisha imaan karto waa meesha sawirada sirdoon laga qaadan karo xeebtaas waxaa la dejin rabaa iyo gurigaas qadar abgaalna inta laga guuriyo qadar la dejimaa taas waa kow aan usoo laabtay dhinaca muhiimadda hadalkayga nimankii kulley villa Soomaaliya fahad qorshaha ninka fahad la u wato awada ugu dambeyn in la weeraro waayo waa in ciidanka degmada Kaaraan iyo Cabdicasiis aad ku wargelisaan ama telefoon aad ka wacdaan anigu kulley waa wada wacay adinkana inta taqaanaan aad wacdaan ama muuqaalkan u sheer garaysaan oo messengerka ugu ridaan haddii awada villa Soomaaliya weerar qaadi weyso wax dambe oo weerar ma jiro ciidankuna waa inay qoryaha iska dhigaan inay shacabkooda dhex galaan markay imaadaan la dirirmaa in dhufays iyo koobka yoorar iyo jilba jabsi lagu joogo ma aha haddii cawada xogta ugu dambeysay inay cawada meeshaas galaan waaye samca ayay kasoo geli rabaan iyo beexaani kor labadaas meel ciidankuna way ka tashteen haddana ka tashta dhinaca suuqa xoolaha iyo waxaan cadda korne waa taqaanaan Xaliime Hayte ama isbitaalka keesanay dhinaceedana rag baa ku diyaarsan oo balcad ka yimid oo iska dagaba qaarka kalena saldhigga booliiska maanta laga buriyay ayay joogaan marka adigoo qadiyad qabiil ka soo tagba adigoo xaq ku dirirayna weliga dagaalan adoo niyadaada kaaga jiro dawladda Soomaaliyeed jijibina dagaalan adoo dimuqraadiyadda iskaga dheel iyo dalkan jijibi iyo 90kii loo laabana iyo adoo ku dirireen oo xaq u dirir ah dagaalan hana yeelin muuse suudi gurigiisa inta laga bixiyaa niman qadar af carabi ku hadla soo dejinaa darbigi marxaba bikum darbi lagu soo qoraa ba ogo ku soo dhawo meel ku qoran tahay marxaba bikum lagu soo qoraa waa diinay waxa kala soo haray banaan baxa maanta sameeyeen bandigiina quwadiina dadeed iyo midiina ciidan waa muujiseen ha u jawaabinaha kuwa ku qarwo oo muuse waa dhintay iyo حسن جبران رياب أو نبض ينول كل إنه مرحان تقياسه سليغ عبد الناصر زور ما يجي سكوتها يقول هذا حسن شيخ مسك حدو بالي أربعة لو قدر ده كمركو خبير كي عدي فدا كبدا تمارت إنتان يدو لو علقة أي أساس وهلو سه يدو جبر لو علقة أي لا حسن شيخ أربعة مسك حد لو قدر هير كاسي جوكتاه هو يدي أبيت كور ولا له فيسبوك سمعنا نبض ينول الله سقران ماشان عدي فدا قبيلة كسر صعته لكن أنا جو هذا إلهك عبسنا يا هاي nin dad waaweyn oo aqyaar oo iga ani waxaan aaminsan dadka idaawana dad iga cilmi badan ku jiro kuwa iga aqoon badan ku jiro kuwa iga garaad badan ku jiro marraba hadal maala yaani oo da'deeda ka yar inaan ku hadlo marrabo hadal bulshada iga sii fogeyn karaan inaan ku hadlo marrabo
عيب واي قفك هدات سياسة نعبتها هبلايو أما وبديهن هبلايو وإكسامبل وعلامات وندتك السيداس لا مثل وبديه هبلا أنت هبل دمشيديس رجانيمو وياه نلاش يسن رجانيمو وياه نل يجري ولا يقانا عيب ما واو مسكحة صح قفك السياسة دي دليل قفك عاين حنون كنوع عاسمو دي كوايا حسن الشيخ وهذا مرو يا حسن الشيخ قولي وكاران كل هنا خوبا أكو جرو شباب ماشي حاليا كهذا اللي أبغى قدير أبغى لو حقريه وسكرات النوع وحوم ما أبد للدعوة واي حالة ده أولا ماشى سمريسا أنت أن ربع أم إنك قعد سنة وعيتها ممكن دولاني عوض الصوودان هدي دولان كاس عوض كقول درستان مرد مسوم الدولان برين واحد ماتي وحرب إلى ذكور سيادي أركتدي السياسة ده ورقد واحد عادي أو وريكتدي مصودي أو جريس لو أدلا واحد عادي nimanka duulaan sooma socdaan oo waxay dhin abgaal hadii xabad lagu bilaabo afarta koone ka dhacay oda muusan casuumada odaga farmaajaha u soo diray wuxuu leeyahay imo oda muusan u taagay aniga haduu farmaajo casuumayo gadaha tago ha isoo casuuman nin raga gurigiisa lagu ma casuumo dhahay raganimo odaga waxa ku jeclaa odagan hadal xibintiisa waa goosana waa nin raga oo loo dhiman karo hadii ku duulaan hatta ana xamar tagay oo difaaca muusan nin nafta hamar loo dhaafsin karo waay anyway dhalinyarada ee daawanaysa ujeedka iyo hadafka ila qaba ee ah in qof Soomaali ah ama abgaal ha noqdo ama majartan ha noqdo ama reexan ha noqdo ama habargir ha noqdo lagu xad gudbin oo darajadiisa la ilaaliyo waa in hadda aad ciidanka dhufeysada ku jiro waliba dadka ay qosaysan la hadlaya inaad ku wargelisin cawada inay tahay marxaladda meesha ugu adag inay tahay rabaan inay ku duulaan mususuudi oo asna u diyaarsada ciidan muuqaalkan waa inaad la wadaagtid qof walba oo uu quseeyo hadduu adigu ku quseeyo waana mahadsantahay halkana barambar waa warqadina waa dhacday waxna soo ma wadaan bari kadibna xarada ciidanka meeshaas ka joogay 12 milyan qaado waa diiday mususuudi lacag kasta waa loo sheegay waa diiday muuse nin banaanka yaala waayo waa gadaashiis hadduu ilaahay na gaarsiiyay nin noocaas ina helno waa beel oo yariiso matala ma lihin in kaar qaba